warbixin ay soo saartay xafiiska kormeerka miisaaniyadda qaranka ayaa muujinaysa in ismaamulada dalka intooda badan ay ku guuldareysteen in ay si dhab ah markaasi u hirgeliyaan mashaariic horumarineed saddexdii bilood ee ugu dambeysay ee sanad miisaaniyeedkan. lacagaasi badankooda ayaa lagu bixiyay mushaaro, howl maalmeedyo iyo sidoo kale gudnooyin xildhibaanada golayaasha deegaanka. warbixintan ayaa tilmaamaysa in inta badan ismaamulada ay ku fashilmeen isticmaalka miisaaniyadihii loogu talagalay horumarka, iyadoo la diiwaangeliyay isticmaal aad u hooseeya oo gaarayo keliya 2% miisaaniyadda horumarineed guud ahaan dalka. xafiiska kormeerka miisaaniyadda qaranka ayaa arrintan u sababeeyayba saameynta ka dhalatay nidaamka cusub ee e-procurement oo ah nidaam markaasi elektarooniga oo lagu maamulo iibsiga iyo qandaraasyada dowladda, kaasi oo la sheegayba inuu hakad geliyba howlihii caadiga ah ee ismaamulada dalka. iyadoo ismaamulka Baringo iyo West Pokot lagu ogaaday in aynan wax lacag ah ku bixinin horumar, inkastoo ay heleen balaayiin shilinka dalka. ismaamulka Baringo ayaa helay adduun dhan 1.64 bilyan oo shilinka dalkani Kenya saddexda bilood ee ugu horeysay ee sanad miisaaniyeedkan. haaseeshee lacagtaasi badankeeda waxaa lagu bixiyay mishaaro shaqaalo, howl maalmeed iyo sidoo kale gudnooyinka xildhibaanada golayaasha deegaanka. lacag dhan 649.9 milyan oo shilinka dalkani Kenya ayaa ku baxday mishaaro, halka 7.2 milyan oo shilinka lagu bixiyay gudnooyin, iyadoo aysan jirin hal shilin oo markaasi lagu bixiyay horumar. sidoo kale ismaamulka West Pokot oo helay adduun dhan 1.4 bilyan oo shilinka dalkani Kenya sanad miisaaniyeedka 2025-26 ayaa isna markaasi diiwaan geliyay horumar la'aan xaalad la mid ah tii sanadkii hore. lacag ka badan 846 milyan oo shilinka dalkani Kenya ayaa lagu bixiyay mishaaro iyo qarashaadka markaasi golayaasha deegaanka. ismaamulka Vihiga ayaa isna ku biiray liiska ismaamulada aan wax horumar ah sameynin, inkastoo uu helay ku dhawaad 1 bilyan oo shilinka dalkani Kenya oo ka yimidba dowladda dhexe iyo dakhliga gudaha, halka lacag badan lagu bixiyay safarada gudaha iyo dibadda, kuwaasi oo gaarayo in ka badan 55 milyan oo shilinka dalkani Kenya. dhanka kale ismaamulka Turkana oo helay adduun dhan 3.8 bilyan oo shilinka dalkani Kenya ayaa ku dhawaad 1 bilyan ku bixiyay mishaarka shaqaalaha, iyadoo aysan jirin wax mashruuc horumarineed ah oo markaasi laga fuliyay ismaamulka Turkana. si kastaba ahaatee warbixintu waxay tilmaamaysaa in ay jiraan ismaamulo waxqabad wanaagsan sameeyayba. ismaamulka Isiolo ayaa noqday kan ugu horeeyay isticmaalka miisaaniyadda isagoo gaaray 21%, waxaana ku xigay ismaamulka Kitui oo gaaray 18%, halka ismaamulada Machakos, Nyeri iyo sidoo kale ismaamulka Uasin Gishu ay iyaguna gaareen celcelis ahaan 14%. dhanka dakhliga gudaha ismaamulka Samburu ayaa noqday kan ugu sareeya aruurinta dakhliga isagoona gaaray 40% bartilmaameedka sanadlaha. sidoo kale ismaamulka Garissa ayaa kaalinta labaad soo galay isagoona markaasi gaaray dakhliga aruurinta 36%, halka ismaamulka Narok uu helay 35%. ismaamulada dakhliga ugu liita waxaa ka mid ah Kwale, Nandi iyo sidoo kale ismaamulka Siaya, kuwaasi oo aan ka badnayn 10% bartilmaameedkooda. xafiiska kormeeraha miisaaniyadda qaranka ayaa ugu dambeyn ugu baaqay baarlamaanka qaranka in uu dedejiyo ansixinta xeerka qaybinta kheyraadka ismaamulada si loo hubiyo in lacagaha dowladda dhexe ay waqtigooda ku gaaraan ismaamulada dalka, ismarkaana aan dib u dhac ku imaanin hirgelinta mashaariicda horumarineed. warbixintan cusub ayaa kusoo beegmaysa xilli shacabka ku nool gobolada kala duwan ee dalka ay sugayaan adeegyo muhiim ah sida wadooyin, biyo, caafimaad iyo waxbarasho, iyadoo su'aalo badan ay ka taagan yihiin halka ay ku dambeeyaan lacagaha loo qoondeeyay horumarka.